wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Xasan Ismaaciil Yuusuf oo muddooyinkii u dambeeyay kormeer ku marayay gobolada dalka ayaa kulan la qaatay maamulka gobolka Togdheer iyo ka degmada Burco waxaana wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland uga warramay xaaladda caafimaad ee gobolka Togdheer gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi iyo maayirka degmada Burco Maxamed Cabdiraxmaan Yuusuf Muraad hore guud ahaan wasiirka yuftigiisa waxaan ku soo dhaweynaynaa gobolka Togdheer wasiir waa kaaga mahadnaqaynaa safarka aad noogu timi ee aad ugu kurgalayso xaaladda maaragtay caafimaadka gobolka Togdheer guud ahaan xaaladda caafimaad ee gobolku way wanaagsan tahay wax dhibaato ah oo hadda taagan ma jiraan runtii waxaan jecelahay halkan mar labaad uga mahadnaqo bahda maaragtay caafimaadka oo runtii si wanaagsan uga hawlgashay kal hore markii maaragtay shubanku oo gobolka Togdheer ka bilaabmay caafimaad darro oo jiray ma jirin laakiin waxa jiray baahiyo caafimaad oo fara badan degmo kasta oo aan tagno waxa jiray baahiyo caafimaad oo runtii ay dadku maaragtay xagga MCH-da oo ku yar gobolka oo waxa weeyaan degmooyin dhammaan MCH-ba lahayn helitiboosiyo mooyaane shaqaalaha iyagana waxay ku soo shaqeeyeen duruuf adag waxay leeyihiin baan is leeyahay in la siiyo muxuu ahay tixgelin iyo mudnaan waxa iyaduna aan meesha laga riixiro iyo nasiy laba meelood oo waliba ka nasiyo war ibraahim markii hore lagu talagalay MCH-da miig xooga saaro waan ognahay awoodeen inta ay gaarsiisan tahay waan ognahay awoodeen ma kafayn karto in tuulo kasta iyo degmo kasta meel kasta laga dhigo healthy boss ama laga dhigo MCH laakiin calal qal intii isku dhowba tabaniyadii isku dhow in meel wax looga sameeyo sidoo kale wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland waxa uu kormeer ku soo maray cisbitaalka weyn ee magaalada Burco isagoona mid u booqday wararka yaala dadka bukaanjiifka lagu daweynayo cisbitaalka weyn ee Burco iyo sidoo kale xanaanada dhexe magaalada Burco wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Xasan Ismaaciil Yuusuf ayaa warbaahinta sharaxaad ka siiyay kormeerkan uu ku soo sameeyay cisbitaalka weyn ee Burco iyo sidoo kale xanaanada dhexe magaalada Burco kormeerkan ku soo maray isbitaalka guud ee magaalada Burco iyo MCH-kii dhexe oo ilmuhu taaganahay waxa weeyaan waa kormeerka caadiga ah ee aan ku soo maray gobolada kale waxaan Sool iyo Sanaag horena waxaan u soo maray Awdal iyo Saaxil waa kormeer caadi ah imkan hadii halka dhigo waxaan halkan markaan ka baxna sii mari doonaa magaalada Sheekh iyo goobo aanu ka furi doono gobolka Saaxil laba MCH si arkayseen waxaanu soo indheynaynay bukaanka jiifay cusbitaalka iyo warar kala duwanaa shaqaalaha sida shaqada u wadeen iyo caafimaad qoladii hawlgaleedana caafimaadka MCH kan markaanu joogno laakiin intii muhiimka ahayd aanu ka gaari karinay baanu maray haddii alla ka dhigo wuu sii socon doonaa kormeerku sidaa Khaliil Barra Awraan TV qaranka Soomaaliland magaalada Burco.